السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال وارون شيك ومسكين أدودي وحاج مبارك أو إذن له كسور وذا حنقاد ميديا sidii caadiga ahaydba waxaan diyaarinayay taxanaheennii la magac baxay reer saaxil maxaa u hadhay waxaan u kaba gashaday in aan baadhitaan iyo dabagal ku sameeyo dahabka macdanta iyo khayraadka kala duwan ee laga boobo gobolka saaxil ee uu qoto maayirka magaalada berbera Master Cabdishakuur baaritaan dheer oo waqti badan iga qaatay kadib waxaan soo xaqiijiyay boobka khayraadka dahabka iyo dheemanku in aanu ku koobnayn gobolka saaxil oo kaliyaata ee uu yahay mid dalka oo dhanba lagu hayo kasoo bilow buurta daalo ee gobolka sanaag togdheer saaxil daadmadheedh salaxley maroodi jeex ilaa iyo buurta siimoodi ee gobolka awdal intaas oo dhanba waxaa jooga shirkado maxalli ah iyo kuwa shisheeye oo waraaqo yaryar oo tuugaysi ah ay siiso wasaaradda macdanta iyo tamarto baarlamaanka lama horgeeyo wax faragelin ahna kuma laha baarlamaanku shirkadahaas badankooda waxaa iska leh madaxda qaranka qaarna sheerar ayay ku leeyihiin maayir Cabdishakuur shirkadaha tuugaysiga loo samaystay ayuu isaguna dacalkiisa ka boobayaa xaajaduba halka laga dayayo ka gundheer haddii aynu jalleecno boobka iyo barakicinta dadka masaakiinta ah laba gobol ayaa lagu hayaa boobka dhulka ee ugu weyn waana maroodi jeex iyo saaxil ha u sii daraato oo xadhkaha ha goosato boobka iyo barakicinta lagu hayo dadka reer saaxil masaakiinta qof kasta iyo qoys kasta oo la dulmiyaa hal qof ayuu u cabanayaa hal magac ayaanu ku dhawaaqayaa mudan madaxweyne waxaan soo jeedinaynaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa in gurigaa uu ahaa marxuumkaas uu ka dhintay madaxweyne waxaan leenahay sidii aad horeba u tidhi ina yaroo moobil xadayna oo gaaja u geysayna jeel ku jiri maayo nin hantidii ummadda qaatayna halkan marmari maayo waxaannu doonaynaa madaxweyne oo aannu kugu garab taagannay oo aannu balyanayna inaad degdeg wax uga qabato sidaa laajigeed waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wax qabto kulmageynta leg dawladda madaxweyne maanta waxaanu kaaga ergeynaynaa haddii hoostaadana lagu boobo oo hoostaadana lagu laayo oo calanka hoostiisa iyo madaxweynihiina lagu dee waxa weeyaan markaa madaxweyne waxaanu leenahay arrinkaa wax nagala qabo hadlayaa oo aan baaq u dirayaa magacaygu waa Caashe Axmed Faarax waxaan halkan kala hadlayaa oo baaq u dirayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi shaydaanka ugu weyn ee sharka iyo dulmiguba ka soo unkamaa waa Muuse Biixi Cabdi wax aanu ogeyn ama raalli ka ahayn oo dulmi boob xatooyo kala qoqob iyo barakicin inagu dhacayaa ma jirto dhulka iyo dahabka la boobayo hantida inta ugu badani jeebkiisa ayay ku dhacdaa wasiir maayir xooghaye iyo taliye ciidantoona wax aanu Muuse Biixi raalli ka ahayn ma sameeyaan maayir Cabdishakuur waxa uu shicibka reer berbera u geysanayo ma aha mid uu moogan yahay Muuse Biixi Cabdi laakiin waa mid uu raalli kaga yahay haddiiba aanu sheerar kula lahayn haddii aynu eegno cadaadiska iyo caburinta xaddhaafka ah ee reer saaxil haysataa si aynu u fahanno bal aynu isbarbar dhigno gobollada kale ee dalka iyo gobolka saaxil gobollada kale ee dalka waxaa wada dega beelo kala duwan oo daanooyin iyo godobo soo kala dhex mareen markaa way kala foojigan yihiin aad ayaanay u adag tahay in ay shaadh dowladeed isku soo xidhaan
laakiin xaqiiqada gobolka saaxil taallaa sidaas way ka duwan tahay. waa bilaa godob, hal reer ayaana u badan, sidaa darteed waxay si dhab ah iskugu dhiibeen dowladnimada, iyada ayay wax walba u daba fadhiisteen. taas ayaa keentay in shaar dowladeed lagu dulmiyo, lagu boobo sharaftooda iyo hantidoodana lagu xalaashado. daawadayaal, micnahayga yaan loo fahmin in aan leeyahay dowladeenna aynu ka hor nimaadno oo aynu diminno, laakiin waxaa lama huraan ah dowladnimadu haddii ay noqotay wax laysku dulmiyo oo laysku boobo oo laysku caburiyo, waa in la helaa meel laga hoosgeli karo oo lagu hakin karo dulmiga dowladda sida gobolada kaleba. daawadayaal, waxaan ku soo koobayaa barnaamijkeennan maantaan ku soo gabagabeynayaa gobolada kale iyo dalka intiisa kale dulmiyada ka dhacaa waa la sheegaa waana laga hadlaa. haddii ay yihiin xisbiyo mucaarid, haddii ay yihiin saxaafado ama dadka shicibka ahiba way ka hadlaan wixii dulumaad ka dhaca. haddaba su-aasha isweydiinta le waxay tahay reer saaxil yaa u maqan.